kadib markii maamulayaasha la magac baxay Somaliland iyo Puntland ay isweedaarsadeen maxaabiis ay hore u kala qabsadeen ayaa saaka waxa lagu qabtay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii shir lagu taageerayo isla markaana lagu soo dhaweynayo tallaabadii ay labadaasi maamul ay qaadeen isla markaana lagu kala wareejinayay maxaabiis ay labadaasi maamul sanad ka hor ku kala qabsadeen dagaal deegaamadaasi ka dhacay shirkani oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin waxgarad culimaa u diin iyo dadweynaha aad u fara badan isla markaana ay soo abaabuleen waxgarad ka soo jeedo gobolladaasi ayaa waxaa loogu baaqay labada dhinaca in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasilloonida gobolka shirkii markii uu dhammaaday kadib ayaa waxaan kula kulmay isla howlkaasi guddoomiyaha shirkaasi ninka lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamed Sahal oo aan wax ka weydiiyey waxa ay shirkooda uu ku saabsan yahay waxauna yiri هو كسر كذا قبل هذا صول سناق عين يجوبا شركة وحيالها اللي قفلت هي اللي واضح الله وحكى بذا هذا وحن وصل دوين إن هالشيء كانوا كلوا إذا سدي محابيستا بوتلاند يسوماليلاند مجالوا أنا عادية هذا وصل دوين إن وطلابو نبت قليو أو أعطتك الصوماليات تمام ملك استعجوجان وحن كلا أو أعد وقولي قلنا اسمه عقاشة وحكرت كي علماء الدين كسر كذا يالها صول سناق عين يجوبا inay ka qayb qaataan dib u heshiisiinta iyo sida ay iyaguna hormuud u noqdaan dadka dib u heshiisiinaya shirkaasi ayaa waxa uu ku dhammaaday jawi aad u heer sareeyo iyaga oo dadka wajiyadoodana ay ka muuqatay farxad iyo reynreyn dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya iyo